muuqaalkii u dambeeyay ee dal ku saabsan wuxuu ahaa mid quseeya dalka Netherlands. haddaba markaan waxaa inoo casuuman dal kale oo Yurub dhaca laguna magacaabo Austria ama Nimsa. Austria waa dal yar oo xiran bad ahaanna ku fadhiya wax ku dhow 84,000 kiiloomitir isku wareega, wuxuuna ka mid yahay dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub. dalalka uu xadka la wadaagana waa ilaa 8 dal. dalka Germany ayaana ah midka uu xadka ugu dheer la wadaago, sidoo kalena Germany iyo Austria waa laba dal oo wax badan wadaaga dhaqan iyo taariikh ahaan intaba. inta badanna dhulka Austria waa buuraley. buuraha xiriirsan ee Alps ayaana galbeed iyo koonfur kaga daboolan, halka bariga iyo waqooyiga dalkan lagu arko taagag jilicsan, waxaana buurta ugu dheer dalkan lagu magacaabaa Großglockner. calanka dalkan waa mid ka mid ah calaamada ugu qadiimsan qaaradda Yurub, wuxuuna taariikh ahaan u laabanayaa 1191 miilaadiga. waa calan midab ahaan isugu jira gaduud iyo cadaan. gaduudka waa mid u taagan awood iyo geesinimo, halka cadaankuna uu u taagan yahay nabad iyo daacadnimo. calanka Austria marka la garab dhigo calamada caalamka, midka aadka u shabaha ama u eg waa calanka dalka dhaca Yurub ee Latvia. ilaa qarnigii 4aad ee ka hor miilaadiga, dadka la yiraahdo Celtic ayaa ku noolaa dhulkan, wuxuuna kadib dhulkan soo maray marxalado dhinac walba isugu jira barwaaqo iyo dagaalo qaraar intaba. Roomaankii qadiimka ayaa ku duulay dhulkan oo qabsaday. Imbraadoriyadii Holy Roman ayaa ku xigtay. bilowgii qarnigii 10aad ee miilaadigana dadka Magriska oo ah awoowayaasha dalka Hungary ayaa ku duulay dhulka Austria. bilowgii qarnigii 16aad waxay Austria wajahday guluf uga imaanayay Turkida ilaa ay Turkidu hareereeyeen magaalada Vienna, waxayna Austria qayb ka ahayd dagaalkii lagu riiqmay ee Thirty Years' War ee socday 1618 ilaa 1648. dhamaadkii qarnigii 18aad, gacaankii Faransiisku wuxuu Yurub ku tuuray qallaase. laga soo bilaabo 1792 ilaa 1815, Austria iyo Faransiisku waxay ku dagaalameen dagaalo xiriir ah. taliyihii Faransiiska ahaa ee Napoleonna wuxuu 1806 kala diray boqortooyadii Roomaanka qaduuska la oran jiray. Imbraadoriyadii Austria ayaa la aasaasay dagaalo ay ku jabisay Faransiiska iyo dowladdii Prussia, kadibna waxay isku fidisay oo awood ku yeelatay bartamaha Yurub. 1867 Imbraadoriyadii Austria laba ayay u kala jabtay, wuxuuna magaceedu noqday Austro-Hungarian, waxayna noqotay mid ka kooban Austria oo dhinac ah iyo Hungary oo dhinaca kale ah, waxayna lahaayeen hal boqor. Imbraadoriyadii Austro-Hungarian waxay ku jabtay dagaalkii koowaad ee dunida, kadibna waxay guuldaradaasi dhashay inay aasaasmato laguna dhawaaqo jamhuuriyadda maanta jirta ee Austria. 1938 waxay Austria ku dhacday gacantii Naaziga ee Hitler hogaaminayay, waxayna dagaalkii labaad ee dunida Austria kala kulantay khasaare dhan walba ah. si kastaba ha ahaatee, xulafadii dagaalkii labaad ee dunida ku guuleystay waxay go'aansadeen inay Austria 4 dhinac u qaybsadaan, waxaana qaybsadeen Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka ama Midowgii Sofiyeed. waqtigaasi magaalada caasimadda ah ee Vienna hal dhinac ma aysan marin, ee 4taasi awoodood ayaa qaybsaday. 1955 waxay Austria noqotay dal si buuxda u madax bannaan, wuxuuna baarlamaanka dalkan ku dhawaaqay dhexdhexaadnimo joogto ah. isla sanadkaas ayayna Austria ka mid noqotay ururka qaramada midoobay, waxayna maanta ka mid tahay 6 dal ee Midowga Yurub ka tirsan balse aan ku jirin ururka NATO. 26 Oktoobar 1955 ku dhawaaqistii uu baarlamaanka dalkan ku dhawaaqay dhexdhexaadnimada joogtada waa taariikh weli la xuso. 26 Oktoobar ayaana loo asteeyay dabaaldegga maalinta qaran ee dalkan. inta aynan ka gudbin taariikhda, waa inaan xusnaa inuu Hitler ku dhashay tuulo dhacda dalkan oo lagu magacaabo Bakhano Amin, gaar ahaan sanadka marka uu ahaa 1889. kadib aabihiis markii uu ka fadhiistay shaqada sarkaalnimo ee kastamka dowladda, wuxuu Hitler inta badan waqtigii carruurnimadiisa ku soo qaatay magaalada Linz oo maanta ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Austria. shakhsiyaadka kale ee caanka ah ee dalkan ka soo jeeda waxaa ka mid ah Arnold Schwarzenegger oo ah jilaa, ganacsade iyo siyaasi soo noqday gudoomiyaha gobolka California ee dalka Mareykanka. sidoo kalena waa shakhsi ka fadhiistay saaxada dhisidda jirka ama bodybuildingka. sidoo kale Austria waxaa ka soo jeeda Gregor Mendel oo ah aabbaha hiddaraaca casriga ama Father of Modern Genetics. dabcan intiina iskuulka soo dhigatayna waa ay garanayaan shakhsigan. Austria waa dowlad federaal ah oo ka kooban ilaa 9 maamul goboleed, waxaana ka mid ah Vienna oo sidoo kalena ah caasimadda dalka.
sidoo kalena waa magaalada ugu weyn dalka waxaana ku nool dad ku dhow 2 milyan. magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaana waxaa ka mid ah Graz, Linz, Innsbruck iyo Salzburg. dadweynaha dalkan tiradoodu waa ilaa 9 milyan, boqolkiiba 90 waa Austrian, halka boqolkiiba 10 oo dadka dalkan ahna ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka kale ee caalamka, gaar ahaan dalalka la deriska ah Austria iyo kuwa qaaradda Yurub dhaca sida Serbia. boqolkiiba 14 oo dadka dalkan ahna waa kuwa ku dhashay meel ka baxsan dhulka Austria oo waa dad yimid dalkan ayagoo raadinaya nolol dhaanta midda dalkooda hooyo. 3 meelood 2 meel oo dadka dalkan ah waa reer magaal, inta badanna waxay ku nool yihiin waqooyiga iyo bariga dalkan. guud ahaanna dadka dalkan boqolkiiba 99 waa kuwa wax aqrin kara waxna qori kara. dhaqanka dalkan waxaa aad saameyn ugu leh Kirishtaanka Kaatooliga oo inta badan dadka dalkan raacsan yihiin. heesaha iyo qaabka ciyaar dhaqameedka folkis ayaa ka caan ah dalkan, waxayna xiiso sii yeelataa kolka ay dhalinyaradu xirtaan dharka hidaha iyo dhaqanka sida dharka dhaqan ee dirndl oo ay dumarku xirtaan iyo lederhosen oo ay raggu xirtaan. Austrianiska ama dadka dalkan waa kuwa ku hadla luqadda Jarmalka, waana luqadda rasmiga ah ee uu dalkan leeyahay. waxaa jiraan lahjad xoogan oo ay dadka af Jarmalka yaqaana ay wada fahmayaan iyo lahjad af Jarmal ah oo Austria kaliya ku kooban. dhaqaale ahaan dalkan waa mid aad ugu horumaray dhanka warshadaha, sidoo kale dhaqaale ahaan waa dal leh dhinac aad u weyn oo dalxiiska ah. lacagta uu adeegsado dalkan waa euro. dalkan waa mid leh shabakad xoogan oo dhanka beeraha organiga, boqolkiiba 22 oo dhulka la beerto ee dalkan ahna waa beero organig ah. agricultural ahaan ama wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, wax soo saarka ugu muhiimsan waa sida caanaha iyo hilibka lo'da, halka wax soo saarka alwaaxdana uu muhiim yahay oo dhulka dalkan boqolkiiba 40 waxaa dabooleen kaymo. laakiin dhaqaalaha dalkan aad uguma tiirsano dhankan iyo sidoo kale wax soo saarka beeraha ee wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay dhanka warshadaha iyo sektarka adeegga. 3 meelood 2 meel oo dhul beereedka dalkan ahna waxaa laga helaa dhanka buuraha Alpes, gaar ahaan galbeedka dalkan, oo dalkan waa mid si weyn ugu guuleystay inuu beero wax soo saar badan ka hirgeliyo dhulka buuraleyda ah. cuntooyinka Austria laga cuno waa kuwa aad ula falgala cuntooyinka laga cuno dalalka la deriska ah sida cuntooyinka Hungary, Germany iyo Italy. waxaana cuntooyinka laga cuno Austria ka mid ah Wiener Schnitzel, Schnitzknödel iyo Ustridel. dhulka dalkan ee buuraha u badan waxaa laga helaa xayawaano duurjooga sida deerada cas ee geesaha dhaadheer, riyaha buuraha, doofaar duureed iyo bisadaha afka qalaad lagu yiraahdo lynxes. laakiin xayawaanka qaran ee dalkan astaanta u ah waa shimbirka gorgorka. webiga ugu dheer dalkan waa Danube oo ah webi wadamo badan mara isla markaana ah midka labaad ee ugu dheer guud ahaan Yurub, waxaana ka dheer oo kaliya webiga Volga. dhanka harooyinka haddaan eegnana, harada ugu weyn Austria waa harada Neusiedl, waxaana la wadaaga dalka Hungary, waxayna caan ku tahay isboortiska biyaha. waxaana dalka Austria ku weyn oo aad looga xiiseeyaa ciyaaraha jiilaalka. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka la saaxiibka ah deegaanka oo kuma jiro kuwa sida weyn uga qayb qaata hawo wasaqeynta, waxaana boqolkiiba 60 oo tamarta Austria ah laga soo saaraa ilaha dib loo cusboonaysiin karo ama renewable resources sida solarka, dabeesha iyo biyo xireennada. sidoo kalena waxaa xusid mudan in boqolkiiba 63 oo ah qashinka in dib loo warshadeeyo. dalkan waxaa laga helaa godka baraf ee ugu weyn caalamka, waana god dhanka buurta u qodan ilaa 42 kilomitir, waxaana laga helaa tuulada lagu magacaabo Weven.